dhalinyaro waa mahadsantii markoowaad marka labaad intii dhimata Allah u naxariisto askarigii saaka qofka dilana waa xiran yahay oo dhibka dhacay marka waxaan rabnaa marka koowaad shaqada aad qabataan iyo danta yar aad u adeegtaan iyo wadooyinka amartaan shaqo fiican ay dalku haysaarto waa mahadsantiin mudaharaadkiina iyo soo bixiina waxa la rabaa inuu ahaado mid nabad ah oo wax dhibaato aanan keenin sababtoo markaa nabad wax ku samaysaan nabad wax ku heleysaan hay'adaha amnigana waxa la rabaa inaad la shaqeysaan annagana waxaa naga go'an hay'adaha amniga inaysan shacabka dhalinyarada aan la dhibin cid alla cidii dhib idin geysatana ama ha noqdaan Soomaali ama ha noqdaan Amisom waa la xisaabtameena annaga idinka idin matalnaa sidaas darteed dhalinyaroy waxaan rabnaa labada arin ay soo socoto hadda waxa ila joogo labada gudoomiye degmo ee degmada Hodan iyo degmada Waabari labadaas gudoomiye waxa la rabaa dadkiina gaadiidka wato qof kasto idin kamida ee gaadiidka wato mooto bajaajta wato inuu horta degmada iska diiwaan galiyo magaciisa geeyo taargadiisa geeyo dib kasta oo loo geysto si loola socdo hadda waxa midaas darteed sababtoo markaa ka diiwaan gashan tahay oo dib ku gaaro dibkaaga meelaha u sheegtida koo qabtaa shakhsiyan ka hadlaa midda guud oo soo hartay wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan waa isticmaali karaan wadooyinka waa mari kartaan waxaa samaynaysaan idinkana waxaa laydinka rabaa inaad qayb ka noqotaan amniga sidaas darteed saacadan wixii laga bilaawdo labada gudoomiye degmo joogaan dad idinka qof walba hadduu gacanta taagto lama kala gaarayo laakiin waxaa samaynaysaan rabitaankiina dhowr qof oo idinka socoto 3 ilaa 5 qof rabitaan aan isdhegaysano dhalinyaro aan isdhegaysano dhalinyaro haddii qof walba gacanta ay taagto isma gaareyno sidaa darteed dad idinka idin hadlo oo wakiil idinka ah labada gudoomiye ayaa idinku haraayo oo aad u sheegaysaan dadkaana wixiina u soo gudbinaysaan waxaa idinka rabaa labada arin ay soo socoto dhalinyaro iyo dadkiinan maanta gaadiidkaas ku shaqeysto waxaa la rabaa koow in qof walba uu qada tago markuu qada tago kadibna qof walba uu wadadiisa isticmaali karo sidaas darteed annaga waxaa idin ballan qaadanaa wadooyinka isticmaali jirteen oo sida caadiga ku isticmaalaysaan inaad si nabad ku isticmaashaan waxaan rabnaa dhalinyaro aan ismaqalno kulligiina dhalinyaro waxaan rabnaa kulligiina waxa ugu sahlan oo hadal aan isku gaarsiin karno waxa waaye dhalinyaro ama ha noqoto dhalinyaro waxa la rabaa ama ha noqoto qof uu wax gaaray ama ha noqoto wada xirantay ama ha noqoto qof walba ra'yi kale uu qabo waxaan ku ballanay labada gudoomiye ee joogo dad idinka socdo idinka xaqiina ka socdo oo 5 qofood ah maya u kaadiya meesha maanta aan taaganahay u kaadi magaciisa meesha maanta aan taaganahay waxa waaye wixii u kaadiya meesha maanta aan taaganahay waa degmada Hodan iyo degmada Waabari fariinta aa u gudbisaan degmooyinka 17 degmo waa wada gaaraysaa anay ii keenayaan meeshaas ay wada gaarayaan laakiin waxa la rabaa hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amniga in la shaqeysaan buuqaana meeshan ku dhamaado wadooyinkana aad caadi u isticmaashaan wixii tabasho iyo cabasho ah qabtaanna 5taas qofood aad iska xil saarteen ayaa u gudbinaysaan waxay soo gaarsiinayaan labada qofood ee hadda joogta labada gudoomiye ayaa soo gaarsiinayaan 5taas qofood aad iska soo xil saarteenna waa ii imaanayaan ayagana waa la hadlayaa waana mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin